udubkiisu wuxuu gaaray wadada uu maro in la dareemo la yiraahdo wadada Nabi Muhammad baa maray sallallahu alayhi wasallam qofka uu salaamo oo musaafixeeyo gacanta geli maalintaas oo dhan udubgeedii waa laga dareemayaa qof kasta oo ku salaamo ama qof kasta oo la kulmo caruurta yaryarka markuu soo maro mid ka mid ah madaxa ka taabtana caruurta kale waa laga garanayaa waa ahadiis saxiixa intaba oo Muslim iyo Bukhari iyo Sunanka ku sugan nabiga dhididkiisa alayhi salatu wasalaam waxaa sugnaatay Salama gabadha la yiraahdo Sulaym gabadha la yiraahdo Anas bin Malik hooyadii Sulaym nabiga habar yar bay ugu dhumay mahram bay u ahayd oo nabiga hooyadii Aamina bint Wahab iyo ayada ridaaca xageeday walaalo ku ahaayeen in badan buu imaan jiray gurigaas oo mararka qaarkood uu iska seexan jiray maalin buu nabigu soo toosay Hijaaz meel kulul bay ahayd intuu yar qayluushaday ayadoo dhididkii nabiga ka baxay ay sida u tirayso saa soo qaadayso ay dhala yar ay sida ugu shubayso markaasuu nabigu yiri maxaa sameynaysaa Sulaym waxay rasuulka Ilaahay dhididkaagu wax kasto uduga uu ka udug badan yahay diibkeena ku darsanayna diib baan ka dhiganayna waa ismarinayna wanaag baa samaysay nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga alayhi salatu wasalaam sidaasuu ahaa dhididkiisa ama jismigiisa ama sida uu ahaa caraftiisu noocaasay nabigu nuur inuu ahaa quraanka cadeynay quraanka ayaa cadeynay nabigu nuur buu ahaa sallallahu alayhi wasallam قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إلهي في سورة المائدة قد جاءكم من الله إلهي حقي سوحي كريم نور هو محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين كتاب عنه حقا يبادلك كالعدين ينا إلهي ما يدين سودجي فتنبه النور بها كلمة النبي النور ما هي القرآن كعدين إنه نبي النور إمام الألوسي إمام كبير هذا كتاب كيسا روح معاني مربو آيات فصيرة أيضا سلاسة فصيرة أيضا إنجيل بونا بقولها واحد كلمة قف إسلام وقلبي إيمان كجر وديه كرر النبي محمد با إنجيل لها صلى الله عليه وسلم ما كسورو بيس سيدا عنو أمسنا قف قلبي إيمان كجر إنجيل لبا أهمات بيلالا ندوى مدى كوبادة إنجيل وسق لك دلتا وودوغنا مال أن وسق لهين إنجيل ما يلات وإنجيل كيف جيدا ووسق لهم بيك إيماتا قف قبيستي ميرتي وعفوان اسمريي اسناليفيي إنجيل ما هو إيمان كرتو إنجيل تو وسق لك دلتا قفو مرقو قبيسان وايو بيدي كيسا ولا جوغو وكوداهو أي إنجيل تو كدلتا وامد تلبا إنجيل تو نقصي نسخان ماشي أو حلوه oo dadka caadiga qofka kamid ah hadii la yiraahdo injil baadleeda qof oo garaanaya ma jiro waa naqsi meesha ugu xun
marka nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo udugiisii caraftiisii iyo dhididkiisu ay sidaa ahayd horta injir uma imaanayso iyo wax la mid ah jirkiisuna wasaq ma yeelanayo tan labaad nusqaan in nabi maxamed calayhi salaatu aad tanqiisisood injir ku sheegtay labaduba waxay keenaysaa gaalnimo waxa ugu yar ee tanqiiska aqallu qaliil ama adnaa qaliil waxa ugu yar ee tanqiisa wax yar ee nusqaan hadaa nabi ogeysa aymadu waxay leeyihiin hadduu qofku yidhaahdo rasuulka maradiisu wasaq bay lahayd injir maaha maradiisu wasaq bay lahayd meel baa wasaq kaga taagan maradiisaa wasaq lahayd waa tanqiis gaalnimay keenaysa nabi maxamed baa injir lahaa sallallahu alayhi wasallam kelimada xukunkeeda isku soo duubo xukunkeedu waa gaalnimo qofkii nabi maxamed baa injir lahaa diinta islaamka uu ka baxa xukunkiisuna waa alqatlu waxaa la yidhahdaa qofkii nabiga tanqiisiyo diinta wuu ka bixi toobadna male xataa hadduu soo noqdo toobad male xukunkiisu waa dil ila dila wey xukunkiisuna waa sida ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka iimaan kale oo islaamka ah waxa noocaas oo kaleeto gaalnimada sifada noocaas oo kaleeto allaha naga badbaadiyo waxa dhibaatada maanta jirto iyo waxa diinta meesha la marinayo waad aragteen in qofku diinta islaamka uu ku dhiirado oo wuxuu rabo iska yiraahdo mawlid lama dhigi karayo cuntada mawlidku waa xaaraam iyo waa maaragtay waa kiya oo dhay oo kaleeta iyo waa hebel dhay iyo waxay soo wadaanba waxay soo gaartay maanta in la yidhaahdo nabi maxamed baa injir lahaa sallallahu alayhi wasallam waxay dhashay waad aragtaa إما وحي سؤالي جماعة كاملة إما وحي يروي مركو النبي عليه الصلاة والسلام مكا كسو تغي مدينة انتو سن إيماني مدينة قلدي دقنيد الرئة أنصارات خزردي أوس بالهجرة عياري لهاين عيارة laba ciyaarood laba saddex ciyaarood oo kala duwan oo ciyaaraha la ciyaaro oo dheesha iyo qablada iyo la yiraahdo ay lahaayeen rasuulku uu joojiyay siduu u yiraahdo ninka siduu isku sheegay waa nin culimo masaa'id buu ka istaagay markuu rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam ciyaartii baa la soo celiyay dhaantada ahayd oo ciyaartii la soo celiyay waa mawlidka weyn liga dhigay عودي ونكو موحوليه نبي محمد انتونا إيمان عيارة الرئة صارت جاهلية عيار جري المولد بقى ليجري عيار مولد اللي يجري نبي ومتري جوجي عيار المولد قال لي مركو بنتين عيار المولد قال سعيد ساسو نسبو شيريا تذكر وقالنا ورد عيار إن جاهلية عيار جري وضد قال لما كل جري وحي عيار جري الإسلام كجوجي وحلا وحي شركيات ورد الإسلام كجوجي سما markuu nabigu dhintay saxaabadii baa nooleeyay markuu nabigu dhintay saxaabadii baa soo celisay ciyaar shirki oo nabigu ka reebay sallallahu alayhi wasallam mise ciyaartii jaahiligu ay ciyaari jireen ma magaceeda mawlid la dhigi jiray waliga waxa uu sheegay ree ansaareed baa intuuna nabigu qabla al-islaam ama intuuna qabla al-hijra nabigu soo hijrooday ayay ciyaari jireen markuu nabigu dhintay ciyaartii ayadeed baa la soo celiyay waa mawlid ninka jahligiisu ma shugaray mawlidka lama samayn kara iyo waa bidca iyo nabigu ma ogeyn iyo da qof la arkay oo qofka hadlayo aqoontiisu la agtaa uu hadlayo
لكن هتوقف مسكحة له قف جاهل هذا مسكحة له سيفر الدين توقف حي مولد وحل مولد وقال الشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مولد ومصدر ميمي دلشو معناه المولد دلشو أنا وامحي ودلشو النبي maalintii uu dhashay zamankii waqtigii uu dhashay baa la yiraahdaa mawlid saasay dadku muslimiinta u leeyihiin bisha uu nabigu dhashay mawlid waxa kale oo mawlid la yiraahdo lagu magacaaba kitaabka lagu kulmiyo lagu qoray siiradii iyo shamaaishii nabiga sallallahu alayhi wasallam labadaas horta mawlidka loo isticmaali karaa dhalashadii nabiga waa dhalasho waa masdar mawlid waa dhalashadii nabiga maxamed وحكلوا مولد ليلى كتاب الشمائش النبي المقبل مركا كتابك هي درشدي سيرة النبي عليه الشكيري نبي ما نتعصر بشيء صفاتي سلسلة سيحي معجزات كاسا إلهي كل أيدي فضائش كاسا إلهي سيئي سلاسوها قفك جعل هذا أجل كاسو ليهي ساسو النبي سمين جري سيران النبي عليه الصلاة والسلام والله شاكيه ويا مولد كي وحول نقضي عيار قبل الإسلام أنصار عيار جري هذا كله شيء ما كجهل وهالكاسو مريا لكن حال الروا ذات الإسلام كا إن الدين تودا ولا لا يعني بسول جيزان بقى دين تودا بسول جيزان قال لماذا بقى ست ترتيب ذات كله سو قلني ست ترتيب نبينا صلى الله عليه وسلم وإن جعلنا ووينينا وتعظيمنا إلهي باويني مشي إلهي وكشيري بان كشيرينا ماشي إلهي ودغي ما غارسين كرنا وان وينينا نبي عليه الصلاة والسلام قفكي تنقيسية والنبي عليه الصلاة والسلام حقيرة وتنقيسينا دين الإسلام هو فبحيا توبتنا ملك واجب كيسنا وإلا دلو حكم كيسوا القتل وي حكم كيسوا القتل وقالوا بي حاسسوا ويكفر من واحد إسلام والسلام كما أنصحيسوا لقم الدبتو كنكروا ومشرك دين الإسلام هو قبح توبتنا ملك واجب كيسنا إلا دلو والله أعلم الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله وسلم على سيدنا محمد